السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سودو انت idinka xalay hurteyseen xukuumadana way shaqeysanaysay dalkan Jarmalka waxa laga tarxiilay 31 qaxooti ah oo qaxootigaas oo ka soo jeeda dalkaasi Afghanistan. qaxootigani waxa laga qaaday airportka weyn ee magaalada Leipzig Halle waxaana laga dejiyay airportka ku yaala magaaladaasi Kabul caasimadda dalkaasi Afghanistan. dadkani la tarxiilay xukuumaddu waxay sheegtay badankooda inay ahaayeen dad dambiiliyaal ah oo dalkana dambi ka galay. wasiirka arrimaha gudaha ee dalkan Jarmalka Alexander Dobrindt ayaa markii hore sheegay in ay heshiis la gaareen maamulka Taliban ee ka taliya dalkaas Afghanistan inay ku celin doonaan dadka dambiiliyaalka ah ee ka soo jeedo dalka Afghanistan. halka dadka diidmada heesto oo wadanka inay ka baxaan ay qasab ka tahay oo dalkaas Afghanistan ka soo jeedo ilaa hadda lagu ma heshiinin in la celin doono iyo in kale oo wasiirka wuxuu sheegay inay hadda wada hadal u socdo ayaga iyo Taliban say u qaabil lahaayeen dadka Ausreisebeflichtiga ah oo diidmada heesto in dalkooda lagu soo celiyo say dalkooda nolol kale ugu sameystaan. laakiin Taliban way ka biyo diidsan tahay waxay ogoshahay kaliya dadka dambiiliyaalka ah in lagu soo celiyo. marka aad u maasan tahay. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.